KNN weerarka oo nuuciisu ahaa kuwo lamida kuwii al-shabaab ay ka geysteen magaalada Muqdisho ayaa waxa uu qaatay muddo ka badan 13 saac ilaa iyo haddana waxa la aaminsan yahay in raggii weerarka qaaday ee hoteelka ku jiraan. galinkii dambe ee talaadadii ayaa rag hubeysan oo ka tirsan al-shabaab waxa ay weerarka ku qaadeen hoteelka hadda ay ku jiraan oo lagu magacaabo Dusit, kana mid ah kuwa heerka ugu sarreeya kule magaalada Nairobi kuna yaala xaafadda ay degaan dadka ladan. warbaahinta Kenya oo ka warantay qaabka uu weerarku u bilowday ayaa sheegtay in ragga weerarka qaaday ay bambo la dhaceen gawaaridii hoteelka yaalay kadibna midkood uu isqarxiyay. wargeyska The Star ee Kenya ayaa waxa uu tirada ragga weerarka qaaday ku sheegay inay yihiin ugu yaraan 6 qof. goor ay saacadu ahayd 3 galinkii dambe ee xalay ayaa waxa la soo badbaadiyay dad ay tiradoodu gaarayso 150 ruux. qof dadkaas ka mid ah oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in gudaha ay ku jiraan dad badan oo u baahan gargaar degdeg ah sida ay ku warantay Reuters. wasiirka arrimaha gudaha Kenya Fred Matiang'i ayaa waxa uu sheegay in xalay saacadu markay ahayd 11 saqdi dhexe dad badan laga soo badbaadiyay hoteelka isla markaana ammaanka xarunta ay al-shabaab weerareen la xaqiijiyay. I can now report that we have secured all the buildings that had been affected. hadda waxaan sheegi karaa inaan sugnay amniga dhammaan dhismooyinka ay saameeyeen dhacdooyinkaas. kooxda amnigu waxay soo badbaadiyeen tiro dad ah oo Kenyaati iyo muwaadiniin kale isugu jira. waxaan hadda ku jirnaa marxaladii ugu dambeysay ee xaqiijinta, aruurinta cadaymo iyo diiwaangelinta cawaaqibka ee dhacdada nasiib darrada ah. sidoo kale waxaan ku sheegi karaa in wadanku uu nabad yahay, qarankuna degan yahay, dadka Kenyaatiga ah iyo dhammaan dadkana soo booqday ay bad qabaan, ayna xurriyad dareemeen si ay ganacsigooda u sii wataan. hase ahaatee hadalka wasiirka kadib waxaa soo baxaya in weerarkii shalay galinkii dambe ka bilowday magaalada Nairobi ay ku waabariisatay. ugu yaraan 15 ruux oo meyd ah ayaa la geeyay goobaha meydka lagu kaydiyo sida uu warbaahinta u sheegay qof goobta tegay. 11 qof oo ka mid ah dadka dhintay waa muwaadiniin wadanka Kenya u dhashay, qofna waxa uu ka soo jeedaa wadanka Mareykanka, mid kale ayaa British ah halka 2 qofna weli aan la ogaan cidda ay yihiin. sida uu ku warramayo wargeyska The Star, rasaastu hadda waxay ka socotaa dabaqa 7. qof ka mid ah dad la soo badbaadiyay 4tii aroornimo ee saaka ayaa waxa uu eheladiisa u sheegay in ciidanka booliisku ay aad ugu dadaalayaan sidii ay dadka la haysto u soo badbaadin lahaayeen. wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa weerarkan cambaaraysay, waxa ayna sheegtay in dawladda Soomaaliya ay Kenya ku garab taagan tahay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab. afayeenka howlgallada al-shabaab Cabdicasiis Abu Muscab oo la hadlay Al Jazeera ayaa waxa uu sheegay inay dileen 47 ruux isla markaana ay dagaalamayaashoodu wali wadaan howlgalka. weerarkan ay ku qaadeen magaalada Nairobi ayaa al-shabaab waxa ay ku soo beegeen sanad guuradii 3aad ee ka soo wareegtay markii ay weerar ku qaadeen saldhigga ay ceelcadda ku leeyihiin ciidamada Kenya, halkaas oo khasaare badan ciidamada Kenya uu ka soo gaaray.